cabdiqaadir bisle waa borotokoolkii hore ee madaxweyne mustafa cagjar wuxuu ka mid ahaa shakhsiyaadkii u soo shaqeeyey sirdoonka Itoobiya gaar ahaanna la soo shaqeeyey Getachew Asafa madaxii sirdoonka dalka Itoobiya ee hore ee Tigreega ahaa isagoo deegaanka Soomaalida u qaabishanaa jaarjuusida maamulka islamarkaana shaqadaas basaasida shacabka deegaanka Soomaalida ee masaakiinta ku baadi jiray weliba isagoo ku shaambadaynaya nabadgelyadnimo haba u badnaadeen ganacsatada deegaanka ee ku sugan magaalada Jigjiga siiba kuwa dhagax buurka soo jeeda haddaba maxaa lagu xidhay xilligaas cabdiqaadir bisle waxaa lagu xidhay tuuganimo iyo jaarjuusnimo ee ma ahayn siyaasad balse isaga in siyaasad lagu xidhay u turjumay si uu kalsooni uga helo Getachew Asafa bisle horey wuu yaqaanay wax duubista Mustafa ka hor marka Mustafa waxaan leenahay adiga ayaa ku jeer ka xul bisle maadaama shuruuda aad cid kasta ku xulanaysay ahayd oo kaliya ma ku xidhay xukuumadii hore haddaysan ku xidhinse ma ka soo horjeeday oo mucaarad ma ku ahayd imikii haatan Mustafa adaa ka khaldan cabdiqaadir bisle waayo dul ibaad ku geysay borotokoolnimo iyo boos una lahayn sirahaagii oo dhan markuu doortay kharash badanna uu urursaday kadibna uu kaa soo horjeedsaday weliba isagoo musharax xoog badan ah oo aadan agtiisa qori ka jabin karin dhanka kale maxaad ka ogtahay garaad kulmiye iyo sida uu muura dugay beesha bartire garaad kulmiye wuxuu caday dhiigii dhuuxii iyo dhacaankii beesha bartire garaadka waxaa kelaaga karaa marka looga keenaa maalin walba 400,000 oo bir oo ka mid ah dakhliga yoomiyaha ee ka soo xarooda kelaaga waxaana miisaaniyadda intaas laag u qabtay oo iskaga gudnaya Mustafa Cagjar si uusan garaadku ugu kicinin beelweynta jidwaaq ee u nasab sheegata mulkiga caasimada deegaanka ee Jigjiga waxaa intaas dheer in sanadka 2013 ee tirsiga taariikhda Itoobiya garaad kulmiye laga siiyey qandaraasyo maamulka magaalada Jigjiga kuwaasoo dhammaa 200 milyan oo bir oo mashaariic ah haddaba dhammaan miisaaniyadda maalinlaha ee looga keeno kelaaga iyo tan 200 milyan ee bir ah intaba iska daa cid kale ee xataa koob shaaha kama uu ka bisiiyo Suldaan Cabdiraxmaan Bade wuxuuse nusbayn caanaha uga shubaa Suldaan Busayri marka garaadku lacagta haba qaatay laakiin waxaan dhihi lahayn beesha aad magacooda ku kalasanayso ee bartire wax kasii miisaaniyadda intaas laag ee lagu qabtay oo ka daa agoonta reer dool shaqafada aad uga darayso oo wax kumanka sii waxay isku khilaafeen Cali Shacaa iyo wiilkiisa oo hal dhinac ah iyo Mustafa Cagjar oo dhinaca kale ah yaa khaldanaa waxay isku khilaafeen Cali Shacaa iyo Mustafa Cagjar maadaama Cali Shacaa ka waayay dantiisii Mustafa Cagjar sidaa darteedna uu Mustafa Cagjar ka calad qaatay oo Cali Shacaana suuqa bartankiisa u qaraacay Cabdirashiidna uu jeelka u taxaway marka si kasta oo uu xumaado Mustafa Cagjar waxa ahayd inay ka xishoodaan maadaama ay ahaayeen dad sayid ah balse ma ahayn dantoodii ay ka waayeen inay mucaaradnimo ku bilaabaan isagoon sanadba joogin Mustafana la yaab ma laha sababtoo ah waa nin aan waxba dan ka lahayn oo kiniinka maskaxda qasab lagu liqsiiyo sida uu sheegay cabdiqaadir bisle oo ahaa borotokoolkiisii hore